Maanta dib u furmaya horyaalka kubadda gacanta ee gabdhaha dalkeena Soomaaliya isaga oo soo dhammaaday wejiga hore ee horyaalka kubadda gacanta ee dalkeena Soomaaliya. Maanta ayaa si rasmi ah waxa uu bilaaban doonaa wejiga labaad ee is-aragga kooxaha ka qaybgalaya tartanka horyaalka kubadda gacanta ee gabdhaha Soomaaliyeed. Afarta kooxood ee sanadkan bilaabay ayaa wejiga labaad is arki doona, waxaana horaantii hore ee bilaabay kulankii hore ee lagu daahfuray kooxaha Hegan iyo sidoo kale kooxda Dowladda Hoose Xamar ama sida aad u taqaano kooxda Muqdisho City Club ayaa mar kale is arki doona galabta. Kulan ciyaareed aad u xiiso badan oo galabta ka dhici doona garoonka kubadda gacanta ee Wish Stadium, waxaana kulankan labada kooxoodba ay soo diyaariyeen dhammaan qaab ciyaareedka ciyaartoyda, iyagoona tababaro ugu dambeeyay ay soo sameeyeen. Lafdhabarta kooxaha ayaa markaasi diyaar u ah labada naadi oo markaasi xifaaltankoodu sanadkan yahay xifaaltan bilow ah xilli ciyaareedkani, iyagoona kooxda Hegan ay dooneyso in galabta ay guul gaarto iyadoona xidigoodana ay diyaar yihiin. Dhanka kale kooxda kubadda gacanta ee markaasi Dowladda Hoose Xamar ee Muqdisho City Club ayaa iyadana dagaal adag ee ugu jiri doonta sidii ay markaasi guul ugu gaari lahayd dhigeeda naadiga Hegan ee ciidanka booliska Soomaaliyeed. Labada kooxood kulamada ay ciyaareen marka la fiiriyo kooxda Hegan hal kulan oo kaliya ayaa laga adkaaday, kooxda Horseed ayaa ka adkaatay dhammaan kulamada kale. Guul ayay gaareen oo kooxdan ay difaacanayaan sanadkan inay ku guuleystaan horyaalka walow ee kooxda Horseed ee sanadkii hore qaadatay ayna dooneyso markan inay ku ceshato. Dhanka kale kooxda markaasi lagu magacaabo Dowladda Hoose Xamar ama Muqdisho ayaa kulan ciyaareedkan dhammaan ciyaartay waxa ay guuleysatay hal kulan oo kaliya, waxayna ka guuleysteen gabdhaha kooxda Madbacadda iyagoo xilli ciyaareedkan iskaga hor yimaadeen, waxayna wadataa oo kaliya hal guul, halka naadiga Hegan ay sidaasi ku wadato laba guul. Kulan ayaa baaqi u ah sidoo kale Madbacadda isna kulan ayaa baaqi u ah oo Hegan iyo Madbacadda ay markaasi kulankooda hakaday, waxaana hakiyay roob soo da'ay. Waxaa la filayaa kulankaasi in la shaacin doono, ilaa iyo hadda weli lama ciyaarin. Kulanka maanta Hegan waxay kaga dhigan tahay haddii ay guul hesho waxa ay markaasi laga sareyn doonaa hal kulan oo kaliya kulanka baaqiga ah. Haddii ay ciyaaraan ay guuleystaan markaa Horseed iyo Hegan ayaa isku dhinaan doona, waxaana la filayaa kulankaasi in dhowaan la ciyaaro. Haddii labada kooxood ee Hegan iyo Horseed ay kulankaasi wejiga labaad ee horyaalka iskaga hormaadaan Hegan ay guuleysato, waxaa markaasi la aadi doonaa kulan dheeri ah oo lagu kala saari doono labada kooxood ee horyaalka markaa ku difaacan doona xilli ciyaareedkani. Sanadkan Hegan ayaa qaadi doonta horyaalka mise kooxda Horseed? Labadaas ayaa ugu buundo badan xilli ciyaareedkan, iyagoona kooxda markaasi gabdhaha Dowladda Hoose Xamar sanadkan ay dardar xoogan ku soo galeen. Waxa ay rajeynaysaa kulanka dhowaan la ciyaari doonto Madbacadda oo isna kulan aad u xiiso badan uu yahay. Waxaan eegi doonaa sida kooxaha markaa ay isku arki doonaan kulan ciyaareedka soo socda iyo waqtiyada la ciyaari doona. Dhammaan tartankan wejigiisa labaad waxa uu bilaaban doonaa maanta oo Isniin ah, sidoo kale Talaado ayaa la ciyaari doonaa, Khamiis, Jimco, Isniin ilaa Talaado ayuu socon doonaa. Waxaa la nasan doonaa Sabti iyo Axad iyo Arbaco. Tartankan lama ciyaari doona. Talaadada 14 bisha 8 2024 Madbacadda iyo Horseed ayaa is arki doona, waana lugta labaad. Wish Stadium ayaa lagu ciyaari doonaa 9:15 ay ciyaartaas soo gali doontaa. 16 bisha oo maalin Khamiis ah waxaa iswajihi doona Madbacadda iyo Hegan oo markaasi iswajihi doona garoonka Wish ayaa lagu ciyaari doonaa 9:15 ayay soo gali doonaan. 17 bisha oo markaasi Jimco ah ayaa la ciyaari doonaa Horseed iyo sidoo kale MCC ayaa iska hor imaan doona. Wish ayaa lagu ciyaari doonaa 9:15. 20 bisha 8 2024 oo Isniin ah waxaa iswajihi doona kooxaha markaasi Madbacadda iyo sidoo kale kooxda Muqdisho City Club. Garoonka Wish ayaa lagu ciyaari doonaa 9:15. Maalin Talaado ah 21 bisha 8 2024 kulanka la wada sugayo ayaa noqon doona kooxaha Horseed iyo Hegan oo markaasi lugta labaad u noqon doona.
haddii kooxahan ay kala guuleystaan waxa ay markaasi noqon doonaan in ciyaar dheeri ah ee la ciyaari doono xilli ciyaareedkan oo qayb weyn ay markaasi ka yihiin horyaalka oo xifaaltan weyn ee lagu